aad baad u mahadsan tahay wadanka waxa weeye Ethiopia iyo waxa weeye dawlad deegaanka waxa weeye dastuurka ka jira dastuur waxa weeye federaal baa jira mid deegaan ayaa isaguna jira dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ka jira xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ah xisbigan talada haya ee waqti xaadirkan waxa weeye majaraha deegaanka u haya marka xisbigu waxa weeye golaha ugu sareeya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waa golaha dhexe gudigiisa fulinta ayaa waxa weeye fariisatay go'aan bay qaadatay go'aankuna ma ahayn mid waxa weeye golaha dhexe ka yimid waxay ahayd mid waxa weeye mataqaanaa ex-president waxa weeye madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo waxa weeye ku codsaday mataqaanaa in xilka uu waxa weeye si nabadgelyo ah u wareejiyo xisbigu waxa weeye golaha dhexe cidda ay doortaanna waxa weeye uu xilka u tiriyo fartiisana ugu dambeysay marar fara badan ayuu talooyin noocaas waxa weeye noo soo bandhigay intaana waxa weeye xagga xisbiga ayuun bay ka suuroobi lahayd waxa weeye go'aanku uu ku leeyahay anigu waan daalay muddo badan baan shaqeeyay marka waxaan rabaa in maaragtay xilka aniga waxa weeye cid lagu wareejiyo laakiin ilaahay hadda ka hor ma qadarin maanta ayay dhacday golaha dhexana wuu soo dhaweeyay arrintaas sidaas ayay ku timid mudane madaxweyne in xilka lagu wareejiyo ma xisbiga go'aamiyay mise waxay ka timid dawladda dhexe Ethiopia xisbiga ayaa go'aamiyay golaha ugu sareeya ee maaragtay xisbiga oo golaha sare la yiraahdo ama golaha dhexe bal waxaad inooga warantaa xaaladda uu ku sugan yahay madaxweynihii adiga xilka kugu wareejiyay wuu fiican yahay waxa weeye mataqaanaa xaaladiisu aad bay u fiican tahay wuu joogaa magaalada Jigjiga ayuu waxa weeye waqti xaadirkan uu joogaa xilkana waxa weeye isagu waxa weeye wali wuxuu joogaa gudoomiyaha xisbiga waxa weeye dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia booskaas waxa weeye isaga ayaa jooga madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ayaan joogaa si annagu xisbi baan ahayn wali waxa weeye mataqaanaa dawladii iyo nidaamkii iyo systemkii sidiisii booskii madaxweynenimada ayuunbaa isbedelay taa marka waxaad ula jeedaa in madaxweynuhu uu xilka wareejiyay balse uusan ka marnayn siyaasadda dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa weeye nidaam baa jira waxa weeye xarun dhaxaa jirta xisbi baan nahay isaguba waxa weeye kolkii hore wuxuu ku qoraa oo uu joogay madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ahna ku-siisimaha gudoomiyaha ayuu ahaa marka waxa weeye hadda jagadii madaxweynenimada iyo tii gudoomiye ku-xigeenka labadaaba maxaan ku dhahay uu ka tanaasulay marka waxa weeye booskii waxa weeye gudoomiyaha xisbiga ayuu waxa weeye hadda joogaa taa lafteeda isagu waxa weeye ma rabo nin waxa weeye dadku waxay u haystaan waxa weeye kursi jecel laakiin ciddii la shaqaysay ayaa waxaynu ognahay in dawladda federaalka Ethiopia ay ciidamo military u soo dirtay magaalada Jigjiga marka in xilka lagu wareejiyo dawladda federaalka Ethiopia raali ma ka tahay maxayse ka ogtahay arrintan walaal kolley waxaa jira wadankan Ethiopia waa wadan waxa weeye ku dhaqma nidaam federalism dawlad deegaanka sana waxa weeye xisbi ayaa jira xisbiguna waxa weeye xaq wuxuu leeyahay cid alla cid ay doontaan iyagoo raacaya procedureka dastuurka deegaanku uu already maxaan ku dhahay xeeriyay inay ay doontaan ay doortaan dawladda federaalkuna sharciyan waxa weeye inay maaragtay aqbasho ayuunbaa maxaan ku dhahay ay noqon marka ma jiraba horena mayna u dhicin cid maxaan ku dhahay dawladda federaalku ay kor ka keento dawladda federaalku mar walba sharciyan dastuurka federaalku wuxuu farayaa dawlad deegaanada cidda ay doortaan dawladda ay dhistaan inay waxa weeye iyagu taageerada looga baahan yahay ay siiyaan